والله خضرة ان حاجي iyo wakan حاجي maaha waxaa markii ugu horeysay social media ka soo muuqday fanaanada caanka ah ee Khadra Silimo iyo fanaanada kale ee caanka ah ee Yurub Genyo kuwaas oo ku wada sugan gudaha Djibouti ee xarunta dalka Djibouti. Fanaanintan aadka looga qadariyo bulshada Soomaalida dhexdeeda waxaana ka mid yihiin fanaaninta runtii aadka loogu jecel yahay bulshada dhexdeeda gaar ahaan Soomaalida. Khadra Silimo oo in muddo ah oo hadal laga weysnaa muuqaalna aan soo duubin ayaa markii ugu horeysay soo muuqatay. Hadda ayaa maalmihii ugu dambeysay la dhexwadwaday baraha bulshada gaar ahaan barta YouTube-ka halkaasi oo lagu falanqeynayay warar run iyo been iskugu jirana laga sameynayay. Fanaanadan caanka ah ee Khadra Silimo ee ku caanka ah in aanay haba yaraatee ka hadal waxyaabaha laga been abuuranayo ama laga run sheegayo laakiinse danteeda taqaana ee ku socota danteeda ayaa waxaa jirtay in maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada la qaada dhigayay. Si kastaba ha ahaatee fanaanada caanka ah ee Khadra Silimo iyo fanaanada kale ee caanka ah ee Yurub Genyo ayaa waxay hooyigoodu noqday gudaha Djibouti kadib markii ay Somaliland iskaga soo tageen gaar ahaan caasimadda. Waxaanay ku jireen fanaanintani xidigaha geeska oo ah kooxda ugu weyn geeska Afrika gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed. Waxaanay ka dhisan yihiin xaruntooda ugu weyn ay tahay magaalada Hargeysa. Waxaana la sheegay in fanaanintani ay gebi ahaanba ay koox ka yagleelayaan gudaha Djibouti taas oo ay haba yaraatee ay iyagu aanay xaqiijinin laakiin la arkayay sawirro iyo muuqaallo laga sameynayay saddexdan fanaan ee ay ka mid tahay fanaanada Ugbaad Aragsan oo iyaduna ku nool hadda sayigeeduna joogo gudaha Djibouti. Saddexdan fanaan ayaa sumcad gaar iyo gooni ahba ku leh bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hargeysa kuwa fanka ku jira. Waxaanay ku jireen kooxaha xidigaha geeska waxaanay laf dhabar u ahaayeen kooxda xidigaha geeska oo in badan ay ku soo jireen. Khadra Silimo oo ah qofka ugu sumcadda weyn leh uguna saameynta badan leh fanaaninta ayaa waxay hadda hooygeedu noqday gudaha Djibouti oo halkaasi ay ku nooshahay. Fanaanada caanka ah Yurub Genyo ayaa sidoo kale iyaduna Hargeysa in badan ku nooleed waxaanay meelo kala duwan ay uga baxday showyo kala duwan sida ay ugu soo qabsato kaas oo ay ugu dambeysay kii ay ku qabsatay Garowe ee maamul goboleedka Puntland. Waxay timid magaalada Hargeysa in muddo ah markii ay ku nooleedna waxay aaday dalka Djibouti halkaasi oo ay sayigeeda ka calmatay oo dhowaan baraha bulshada hambaliyada iyo bogaadinta ay isqabsatay. Sidoo kale fanaanada caanka ah ee Ugbaad Aragsan ayaa iyaduna magaalada Hargeysa ka soo tagtay waxaanay joogtaa hadda gudaha Djibouti halkaasi oo ay nolol kula qaadanayso sayigeeda cusub kadib markii propaganda iyo qaylo iyo been abuur lagaga been abuurtay gudaha social media la soo dhigay muuqaalo kala duwan iyada iyo sayigeedii hore ee Qamar Suugaani uu ku kala dhex maray. Waxaa kaloo la sheegay sababaha ay iskaga soo carartay oo ay Hargeysa uga timid ay hadda xaajigeeda iyo sayigeeda cusub ay kula nooshahay gudaha Djibouti uu yahay sidii ay dhaawacyadii soo gaadhay iyo noloshii ay soo martay ay uga bogsan lahayd ay hadda gudaha Djibouti ugu nooshahay. Fanaanintan reer Hargeysa ee Hargeysa ka soo jeeda ayaa maalmihii ugu dambeysay waxay ku noolaayeen gudaha Djibouti halkaasi oo dareen ka dhashay markii la ogaaday in halkaasi ay ku sugan yihiin. Fanaanada Khadra Silimo ayaa ahayd fanaanada ugu saameynta badan leh baraha bulshada taas oo muuqaallo iyo sawirro kala duwan laga sheegayay taas oo ay iskugu jireen inay fanaanadu ka dhoofi doonto Djibouti. Sidoo kalena waxaa jiray in fanaanadu ay rabto inay koox ka aasaasto gudaha Djibouti. Waxaa kale oo la sii sheegi jiray oo baraha bulshada la soo dhigay in ay gebi ahaanba fanaanadu heshay baasaboor ay Canada ku tagayso ama fiise taas oo ay hadda ka diyaarinayso gudaha Djibouti waxaana la filayaa inay dhowaan baxdo. Hase ahaatee fanaanada ayaan haba yaraatee waxyaabahaasi ka hadal oo baraha bulshada inta badan la hadalhayay. Fanaanada caanka ah Khadra Silimo ayaa ku caan baxday in ay gebi ahaanba aanay ka hadal waxyaabaha laga sheego ama lagaga been abuurto. Hase ahaatee fanaanada marka ay hadasho cidna ma dhaleeciso cidna ma caydo sida fanaaniinta qaar ayaa waxa ay ku suntan yihiin marka la hadal qaado ama wax laga sheego in markiiba ay soo boodaan oo ka bacdina views kale laga sameeyo. laakiinse Khadre waxaasi waa ay ka duwan tahay oo waxa iska dhigtaa
qof mas'uul ah oo aan runtii jecel in ay bulshadeeda ixtiraamto. Hase ahaatee, waxay socotaba hadda ay soo afkooday, waxaana u muuqataa in gebi ahaan Khadra Silimo ay nolosheeda ka tashatay oo ay iyadu nafteeda ku kalsoon tahay. Sidoo kale, fanaaniinta caanka ah ayaa badanaaba waxay la kulmaan in gebi ahaanba run iyo been laga sameeyo, taasi oo ay baraha bulshada isla qabsato, kadibna isku rogto in fanaaniintii caanka ahaa ee aadka loo jeclaa in ay hawada u marayaan dadkii beenta ka soo been abuurtay. Si kastaba ha ahaatee, fanaan kastaba waxa uu leeyahay dhaqan gooni ah, taas oo bulshada kaga duwan yahay kuwa kale. Fanaanada caanka ah ee Khadra Silimo ayaa waxa ay ku jirtaa xiddigaha Hargeysa, gaar ahaan dadka aadka loo qadariyo, waxaanay ka mid ahayd dadkii ugu saameynta badnaa sanadkii 2019, taasi oo muuqaaladii ugu badnaa ee laga sameeyay lagu qiyaaso ilaa 2,000 oo muuqaal, taas oo baraha bulshada lagu soo faafiyay lana soo dhigay.
way